ka waran haddii aad saaran tahay diyaarad safar caalami ahna aad ku jirto kadibna si lama filaan ah kooxaha hubeysan ay la wareegaan dhaqdhaqaaqa diyaaradda ka waran haddii ay diyaaradda ay u jiheeyaan wadanka aad u socotay maahe wadan kale diyaaradana ay wadan shidaal ku filan hawada sarena lagu gorgortamayo sheekadeeni maanta waxaan kaga hadlaynaa afduubkii Somali Airlines oo ka duushay garoonka diyaaradaha Muqdisho una socotay Jidda ee dalka Sacuudiga iyadoona ay saarnaayeen 130 qof afduubayaasha ayaana wadamo badan codsi u dirsadeen si dalkooda looga dejiyo diyaaradan laakiin codsigaasi ay dalal badan iska diideen ayagoona caalamka iyo Soomaaliya ay ku wargeliyeen in la afduubtay diyaarad ay leedahay Soomaaliya ugu dambeyntii dalka Itoobiya ayaa ogolaaday in dalkeeda laga dejiyo diyaaradaasi afduuban waxaa muuqaalkan ku soo bandhigi doonaa sida ay xaaladdu ku bilaabatay dalabka afduubayaasha gorgortanka socday iyo sida rakaabka loo badbaadiyay waa in salaam saaxiibayaal magacaygu waa Xaliima Daawud inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo channelka laagtanaad ii saarto channelkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka inoo bilaabo warbixinteena maanta Somali Airlines waxay ahayd shirkadda duulimaadka qaranka ee Soomaaliya waxaa la aasaasay 5 Maarso 1964 shirkaddu waxay ahayd iskaashi u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Alitalia oo laga lahaa dalka Talyaaniga waxaa markii dambe waxaa la wareegtay Soomaaliya xarunta ugu weyn ee Somali Airlines waxay ahayd garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Aadan Cadde International Airport iyadoona sidoo kale lahayd xarumo labaad shirkaddu waxay bixisay duulimaadyo gudaha iyo dibadda iyadoona duulimaad ka sameyn jirtay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn ee Soomaaliya ka baxsan dalka Somali Airlines waxay hakad gashay sanadkii 1991 markii uu qarxay dagaalkii sukeeye ee Soomaaliya taasoo keentay in dhammaan duulimaadyadii la joojiyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in dib u howlgelinta Somali Airlines 18 Luulyo 2025 hadafka dib u howlgelinta ayaa ah in la yareeyo ku tiirsanaanta shirkadaha shisheeye la kobciyo dhaqaalaha dalka iyo in la abuuro fursado shaqo oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed aan u soo noqono warbixinteena 14 November 1984 diyaaradda Somali Airlines nooceedana ahaa Boeing 777 ayaa ka duushay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayadoo u socotay Jidda ee dalka Sacuudiga diyaaraddu waxaa saarnaayeen 130 qof oo kala duwan ay ku jireen rakaabka diyaaradda shaqaalaha diyaaradda iyo dad u dhashay dalal shisheeye safarku wuxuu ahaa mid caadi ah bilowgiisa rakaabkuna waxay ku mashquulsanaayeen howlahooda sida akhriska sheekooyinka iyo daawashada muuqaalka gudaha diyaaradda 30 daqiiqo diyaaradda hawada ku jirtay 3 nin oo hubeysan ayaa la wareegeen maamulka diyaaradda kooxdii saddexda ah waxay ka soo kaceen kuraasta ay ku fadhiyeen hubkoodana ayay soo bandhigeen degdeg iyo qeylo ayaa ka dhex bilowday gudaha diyaaradda laba ka mid ah waxay istaageen bartamaha diyaaradda si aysan qofna uga kicin waxayna ku amreen rakaabka fadhiya madaxa inay hoos aadiyaan shaqaalaha adeega diyaaradda waxaa lagu amray inay joojiyaan shaqadooda ayna dadka u sheegaan in la raaco amarada shaqaaluhu waxay isku dayeen inay rakaabka dejiyaan afduubayaasha ayaana dhaawacay dhowr qof hogaamiyaha kooxda wuxuu u dhaqaaqay qolka laga maamulo diyaaradda asagoona ku qasbay in albaabka uu furo duuliyaasha waxaa loo sheegay in aysan adeegsan kood degdeg ah ama gargaar kale markii albaabka uu furmay hogaamiyuhu wuxuu ku qasbay duuliyuhu wuxuu ku amray inay diyaaradda ku sii socdaan jihada ay rabaan afduubayaasha kale ayaa ku dhawaaqay diyaaradda waa la haystaa qofna ma istaagi karo qof kasta waa la badbaadin doonaa shaqaalaha waxaa lagu amray inay hubiyaan in qofna uu dhaqdhaqaaqin caruurta iyo waayeelkana loo sameeyo kuraas gaar ah si xaaladda u degto hogaamiyuhu wuxuu ku amray duuliyaasha inay ku hadlaan raadiyaha ayna u sheegaan inay diyaaraddu la afduubtay talabaadna ay jiraan 3 nin oo la wareegtay diyaaradda waxaa la sheegay inay ka tirsanaayeen SNM Somali National Movement waa urur siyaasadeed iyo mid military oo aas-aasmay 1980 kuwaas oo ka carooday caburinta dawladda dhexe ee kacaanka u soo noqon warbixinteena kooxdan 3 qof ka kooban waxaa hogaaminayay Cawil Cadaami afduubayaashu waxay codsadeen in la sii daayo maxaabiis siyaasadeed iyo in diyaaradda loo ogolaado inay ka degto meel ay iyagu rabaan
afduubayaashu waxay ku hanjabeen in haddii amradooda la jibiyay isticmaalayaan rabshad diyaaradana ay qarxin doonaan. Shaqaalaha diyaaraddu waxay sii wadeen inay dejiyaan rakaabka ayagoo ay jirtay dhaawacyo. Kadib markii afduubayaashu la wareegeen diyaaradda, waxaa duuliyayaasha u sheegeen in diyaaraddu ay ka dejiso magaalada Cadan ee markaas caasimad u ahayd dalkii Koonfurta Yemen. Ujeedkoodu wuxuu ahaa in halkaasi ay kasii wadaan gorgortanka dalabaadkooda, gaar ahaan sii deynta maxaabiis siyaasadeed. Afduubayaashu waxay xiriir iyo codsi u gudbisteen Cadan in diyaaradda laga dejiyo. Maamulka garoonka Cadan wuxuu diiday in diyaaradda halkaasi ka degto. Sababaha waxaa ka mid ah cabsi amni iyo siyaasadda Yemen waqtigaasi aysan rabin inay ku lug yeeshaan khilaafka gudaha Soomaaliya. Kadib markii Yemen diiday in diyaaradda ay ka degto dalkeeda, afduubayaashu waxay u baahdeen meel nabad ah oo laga dejiyo diyaaradda si gorgortanka uu sii socdo. Djibouti waxay noqotay meesha ugu macquulsan maadaama ay ahayd wadan daris la ah Soomaaliya, nabadda isla markaana diyaar u ahaa inuu dhexdhexaadiyo. Afduubayaasha ayaana qorshahoodii bedelay ayagoo raadinaya dalal kale ee diyaaradda ka dejiyaan. Xitaa waxaa la sheegay inay rabeen in diyaaradda ay ka dejiyaan Liibiya, laakiin duuliyuhu wuxuu ku dhahay afduubayaasha in shidaal dalkaasi uu ka tago uusan wadan. Waxayna markii dambe qorshahooda u badin dalka Itoobiya eena ka dejiyaan diyaaradda. Duuliyayaasha diyaaradda ayaana raadiyaha u gudbiyay codsiga maamulka diyaaradaha ee Addis Ababa. afduubayaasha oo ka faa'iideysanaya xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Waqtigaasna dagaalkii labadaasi dowladood ka dhaxeeyay si fiican uma dhamaan, waxaana Itoobiya magangeliyo siineysay kooxo jabhad ah oo Soomaali ah, kuwaas oo kasoo horjeeday dowladii kacaanka oo hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Afduubayaasha ayaana fursad u arkayay Itoobiya ayaa ogolaatay in dalkeeda laga dejiyo diyaaradda Somali Airlines oo u afduuban kooxdaani. Sidaas ayaana diyaaradda u cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa. 118 qof oo rakaab ah iyo 22 shaqaalaha diyaaradda ayaa ka degay garoonkaasi. Kadib dowladda Itoobiya iyo kooxdaani waxa uu bilaabay wada hadal, waxaana marka hore lagu heshiiyay in ay afduubayaasha ay sii daayaan 12 qof oo iskugu jira dumar iyo caruur, iyo dhowr qof oo ajaanib ah oo dalkooda ay soo wakiisheen dowladda Itoobiya. Kadib afduubayaasha waxaa la weydiiyay waxa ay rabaan. Kooxdaani afduubayaasha waxa uu u hadlay hogaamiyahooda Cabil Cadami, wuxuuna sheegay inay rabaan in la joojiyo xukunka dilka ee bari lagu fulinayo dhowr dhalinyaro oo Soomaaliyeed, iyo in la sii daayo maxaabiis arrimo siyaasadeed u xirnaa loona gudbiyo dalka Djibouti. Waxay sheegeen haddii Britoola la toogto dhalinyaradaasi ayagana toogan doonaan madax Soomaali oo saarnaa diyaaradda u afduuban oo ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka Waqooyi Galbeed Ibraahim Afgaab ayna qarxin doonaan diyaaradda. Dowladda Soomaaliya culeyska ugu weyn wuxuu ahaa in xiriir diblomaasi oo markaasi ay ka dhaxeeyeen Itoobiya iyo Soomaaliya. Talyaaniga oo markaas diyaaradda ay ka saarnay muwaadiniintiisa ayaa dowladda Itoobiya ka codsatay in arrintaasi ay soo galaan oo ay dowladda Soomaaliya u gudbiyaan codsiga afduubayaasha. dowladii kacaanka ayaana dhowr mar diiday codsiga afduubayaashan ayaa markii dambe ogolaatay codsigan, waxayna dowladda Soomaaliya soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso dalabaadkii iyo codsigii afduubayaasha inay aqbashay. dilkii lagu fulin lahaa dadkii maxkamadda xukuntay ay ku jireen xabsiga Mandheere ee joojisay dowladda Soomaaliyeed ayaana soo afjartay 75 saacadood oo wada hadal ah. rakaabkii ayaana la fasaxay, diyaaradii ayaana dib ugu soo laabatay Soomaaliya.